السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada maanta iyo muuqaalkeena cusub maanta muuqaalkeenu waxa ku saabsan yahay sida ay indhaheen wax u arkaan optical illusion iyo sida ay maskaxdeenu u fahanto hadaba waxaan barta ku soo bandhigi doonaa sawiro dhowr ah kuwaas oo laga rabo inaad sheegto waxa ugu horeeya indhaha u qabtaan hadaba waxaan ku siin doonaa 5 seconds amba 5 seconds oo laga rabo inaad ku sheegto waxa ugu horeeya ay indhaha u qabtaan hadaba aan bilowno muuqaalkeena markii ugu horeysay wixii aad aragtay muxuu ahaa geed mise laba waji oo iska soo horjeeda hadii aad aragtay geed waxa tahay qof xoog saara oo fiiro gaar ah u yeesha waxa uu rabo inuu qabto sidoo kale waxaad ku fiican tahay inaad akhrido wajiyada dadka kale laakiin hadii aad aragtay laba waji oo iska soo horjeeda waxa tahay qof caqli badan oo la dhaqmi karo lehna dabeecad fiican hadaba keeba tahay waxyaabahan soo sheegnay hadaba anayno bal sawirkeena labaad hadaba maxaad aragtay markii ugu horeysay shimbir xoor ah mise bakayle keeba aragtay markii ugu horeysay hadii aad aragtay markii ugu horeysay shimbir xoor ah amba shimbir waxa tahay qof farshaxanka yaqaan oo leh hal abuur sare sidoo kale waxa leedahay dareen hormarsan sidoo kale waxa tahay qof waqti ku bixiya sidoo hami sare u gaari lahaa laakiin hadii aad aragtay bakayle waxa leedahay awood gorfeyneed oo tayo sare leh waxa ku fiican tahay qorista akhriska iyo xisaabaadka sawirkeena saddexaad waa maxay wixii ugu horeysay ee aad aragtay koobka lagu cabay cabitaanada mise laba waji amba laba qof oo iska soo horjeeda hadii aad aragtay koobka lagu cabay cabitaanada waxa tahay qof degan oo afkaaban sidoo kale waxa tahay qof ku kalsoon naftiisa wax kasta oo ku imaata laakiin hadii aad aragtay laba waji amba laba qof iska soo horjeeda waxa tahay qof bulshaawi ah oo bulshadiisa ku dhex jira sidoo kale waxa jeceshahay inaad waqti la qaadato dadka kale sidoo kale waxa aad uga firtaa waxaad qaban lahayd hadaba adigu ma isku aragtay astaamahan aan soo sheegnay sawirkeena afraad hadaba waa maxay wixii ugu horeysay ay indhaha u qabtaan amba aad aragto waxaad aragtay gabadh yar mise gabadh waayeel ah oo daa hadii aad aragtay gabadh yar waxaad leedahay shakhsiyad aad iyo aad u wanaagsan sidoo kale waxaad leedahay jididilo fiican markastana waxaad ku hamidaa inaad noloshaada meel sare ka gaadho laakiin hadii aad aragtay gabadh waayeel ah waxa tahay qof wax dhaliila markasta oo dhaliil badan sidoo kale waxaad leedahay waayo aragnimo nololeed oo aad u sareysa sidoo kale waxa tahay qof mar walba isku daya inuu adduunkan ka eega dhinacyo badan sidoo kale waxaad leedahay sidoo kale waxa tahay qof aad iyo aad u naxariis badan hadaba astaamahan aan soo sheegnay keeba tahay adigu sawirkeena shanaad hadaba waa maxay wixii ugu horeeyay aad aragto amba indhaha ku qabtaan ma waxaad aragtay gaari mise waxaad aragtay nin sita diirad amba weynayso mise waxaad aragtay xarafka hadaba keebaha wixii ugu horeeyay ay indhaha ku qabtaan hadii aad aragtay gaari markasta waxaad doorbitaa inaad ku socoto xawaarahaaga sidoo kale waxaad doorbitaa markasta inay wax walba ku socdaan amarkaaga sidoo kale waxaad doonaysaa markasta inay wax walba ku dhacaan sida aad rabto sidoo kale waxa tahay qof soo jiidasho badan hadaba hadii aad aragtay nin sita weynayso aba diirad uma aanad fiirsan faahfaahinta sawirka sidoo kale waxaad doorbidaysaa inaad diiradda saarto sawirka weyn laakiin hadii aad aragtay xarafka waxa tahay qof arkaya ama u jeeda waxyaabaha aan dadka kale arkayn sawirkeena lixaad hadaba waa maxay wixii ugu horeysay ee aad aragtay waxaad aragtay gabadh qurux badan mise waxaad aragtay nin sita qalabka muusiga lagu garaaco hadii aad aragtay gabadh qurux badan qaybta midig ee maskaxdaada ayaa ka fiican qaybta bidix sidoo kale waxa tahay qof farshaxanka yaqaan sidoo kale waxa tahay qof aan cabasho badnayn oo dadka ka soo caban hadaba hadii aad aragtay nin sita qalabka muusiga lagu garaaco waxa tahay qof u fiican inuu markasta wax qorfeeyo sidoo kale waxa tahay qof maskaxdiisu ay aad iyo aad u fiican tahay sidoo kale waxaad ku fiican tahay xirfadda luqadaha sawirkeena toddobaad hadaba waa maxay wixii ugu horeysay ay indhaha u qabtaan amba aad aragto ma wuxuu ahaa yaxaas weyn mise doon ay saaran yihiin laba qof hadaba markii ugu horeysay hadaad aragtay yaxaas weyn waxa tahay qof leh
shakhsiyad wax ku ool leh. sidoo kale waxaad tahay qof qurux badan lehna digtoonaan badan. sidoo kale markasta waxaad ku dadaashaa inaad iska ilaaliso khataro badan oo kugu iman kara. laakiin haddii aad aragtay doon ay saaran yihiin laba qof, waxaad tahay qof leh fiiro gaar ah. sidoo kale waxaad leedahay maskax ballaadhan. sidoo kale waxaad tahay qof fahmi kara wax kasta oo ku yimaada. sidoo kale waxaad dareen u leedahay waxyaabo kasta amba wax kasta oo hareeraha ka dhaca. haddaba intan oo qodob aan soo sheegnay wax ma isku aragtay? sawirkeena 8aad. haddaba waa maxay wixii ugu horeysay ay indhaha u qabtaan amba aad aragto? ma waxaad aragtay ay madaxii mise laba bisadood oo dhinac taagan oo dhexdooda ku taalo calaamada looft? haddaba haddii aad aragtay ay madaxii, waxaad tahay qof bulshaawi ah. sidoo kale waxaad tahay qof farxad badan oo aan sidaa wax xanaaq badnayn. sidoo kale waxaad leedahay saaxiibtinimo fiican oo waxaad ku fiican tahay saaxiibtinimada. laakiin haddii aad aragtay laba bisadood oo dhinac taagan dhexdooduna ay ku jirto calaamada looft, waxaad tahay qof caqli badan. laakiin waxaad tahay qof aad iyo aad u xidhan. sidoo kale waxaad tahay qof maskax furan oo soo dhaweyn fiican. sidoo kale waxaad tahay qof soo dhaweeya wixii fikradaha cusub. sidoo kale waxaad tahay qof ka walaaca waxyaabaha ay dad kala sameeyaan. haddaba waxyaabahan aan soo tilmaamay kuwee baa tahay? sawirkeena 9aad. haddaba waa maxay wixii ugu horeysay ay indhaha u qabtaan amba aad aragto? ma waxay ahaayeen laba yaxaas mise shimbir? haddii aad aragtay laba yaxaas, waxaad tahay qof mar walba isku daya inuu xakameeyo xaalad kasta oo ku timaada noloshiisa. laakiin dhibaatada aad qabto waxay tahay inaanan lahayn awood hogaamineed oo wax ku hogaamiso. laakiin haddii aad aragtay shimbir, waxaad tahay qof ku qanacsan mar walba in uu dadka kale ka qaato amaro. laakiin waxaad ku fiican tahay fulinta hawl kasta oo lagu dhiibo. sidoo kale dadku waxay ku arkaan qof u faraxsan saaxiibtinimada dadka kale oo mar kasta lagu kalsoonaan karo. sawirkeena 10aad. haddaba waa maxay wixii ugu horeysay ay indhaha u qabtaan amba aad aragto? ma waxaad aragtay gabadh timo madow leh mise waxaad aragtay weji weyn? haddii aad aragtay gabadh timo madow leh, waxaad tahay qof bulshaawiya oo bulshada dhex gala. sidoo kale waxaad tahay qof jecel inuu asxaabtiisa la wadaago waxa uu jecel yahay. laakiin haddii aad aragto weji weyn, markasta waxaad doorbidaa inaad xaliso mushkiladaha adigoo aan cid u soo bandhigayn. sidoo kale waxaad leedahay shakhsiyad fudud oo furfuran. haddaba intan astaamood ee aan soo sheegnay keebaad leedahay? maanta muuqaalkeen intan ay ku saabsan yahay. fadlan haddaad ka hesho muuqaalkan like saar si aan fiidiyodan oo kale u soo badino. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar oo la sii wadaag asxaabtaada. mahadsanid.